Soomaalida waxa la yiraahdaa waa dad aad u layaab badan suuqyadooda maalin walba waxa ka dhaca sixir barar iyo dhac loo geysanaya danyarta Soomaalidu waa dad asal ahaan haysta diinta Islaamka kuna dhaqma balse waxay diin ahaan oo kale u haystaan qabaliyada oo waxa qeyrkood ka reebtay ubadkoodana baabiisay qabyaalada ay hor kacayaan odayaasha caaqilada iyo salaadinta waqtigan jira majaalista ay fadhiistaan haddii mid kamid uu caayo ama uu aflagaadeeyo diinta ama rabbigiisa ma jiro qof bini'aadan oo ka xanaaqaya ama ka dagaalamaya balse ninka qabiilkiisa wax laga sheego isla markaaba uu ka dagaalamaa balse taasi dhibta hadda jirta maaha dhibta hadda jirta waxa weeyaan dhalinyartii oo koox rag iyo dumar diinta uga baxaysa filimkan idin soo bilaabay qisada filimka magaaladan waxa ku nool sheekh la yiraahdo Sheekh Idriis Al-Hajari oo aad dunida looga jecel yahay assalaamu alaykum شقا حرارا مبينا وشيخ جيتي ومحدبدها ku qabtay maxaadirooyin uu ku jeedinayo luqada kale मैं चला चाहूंगा लेकिन जाने से पहले मैं एक जरूरी बात बोलूंगी अल्लाह की किताबी बड़ो फैलाओ फिर हिदायत मिलेंगी फिर रहमत मिलेंगी इंशाअल्लाह खुदा हाफिज फैलाओ waa sheekh mar walba jecel inuu hadla sidii saxaabada way hadli jireen oo kale اتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وما هذه السلحفاة يا مولاي ونشغلنا إن شاء الله تعالى لا دعني أكلمها اذهبي أيتها السلحفاة ذهابا بلا رجعة ونحن قوم لا نحب الزلاحف هيا إلى الأمام dhanka kale isna waxa jira sheekh la baxay al-Allaama Sheekh Ibrahim Sheekh Ismaan Ad-Dawsi kaasoo mar walba eedeeya Sheekh Idriis Al-Hajari oo kana soo horjeeda Sheekh Idriis waa calmaani dadka ku qaldaya inuu wanaagsan yahay xadiisyada uu inta badan adeegsanaana waa mawduucyo iyo ahadiis daciifa hadii uu run sheegayo waxa ay tahay ha sheego firqada uu yahay saw Sheekh Ibrahim Ismaan dadku kala qaybinaya ilaahay bil hortagi maalinka qiyaamada dadku qolaba wax ku sheegay aniga waxaan hayaa doon ilaahay oo rumeeyay rabbigii qaatina dariiqi rasuulkiisa laakiin Ibrahim Ismaan dadka wuxuu kala firqada uu gol sameeyay dadka uu kala qaybinay isaga sheegay way iga dhacday haddaba maalmaha kamida waxa magaalada yimid nin la yiraahdo Daniel Abdi oo loo soo xilsaaray inuu dhalinta diinta ka saaro برساجة ورياضة برساجة استاجة ورها ورياضة تجري دلكتيني وحشقة ما دايسان waxaanu ka shaqeynaa afartajirnimo wadan ka shaqeeyo baankana wax ka qaatay maad ka soo gashaan diimaan kale adkiga jireysaan iyadoo bisha gaarin lacagta la iska soo laagay mushaarka war marka waxa la soo laagay soo laagay waridka maxay ka galay kiniisaas laga soo laagay ee baadiriinta soo diray diimahan marka la galiyo maxaa la iskaga baahan yahay soon iyo salaad iyo sikiyo waxa garanay in ruuxan yiri shahaadada lidin kama baahna salaadnimo tukanaysan kaliya waxaad aaminaysaa in nabi ciise dambigiina u dhintay saasaad ugu jirtaa marka waxay daadaxay gacad haga sayran wax waxan waa shagarada wala ku sawiraya marka soo gashaan waa sida loo majra habaabiya dhalinteena waxa la siiyaa lagu soo jiitaa lacag yar waxa loo iibiyaa baabuur waxana loo kireeyaa guri yar sidaasi ayaa akhirada loo xumeeyaa haddaba maalmaha kamida ayaa waxa Sheekh Idriis u soo dacwooday waalidiinta xaafadda ee dhalintooda diinta ka baxday sheekhuna wuxuu kaga hadlay oo uu qodobka ku soo qaatay khudbadiisa jimcaha assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaal qodobadan idinku hayna maanta kuwada ugu muhiimsan waxa kamid ah Sheekh Weynaada Sheekh Idriis Al-Hajari iyadoo ay in badan isaystaan Sheekh Ibrahim Sheekh Ismaan Ad-Dawsi ayaa Sheekh Idriis waxa uu ku qabtay masaajidkiisa khudbad dhan walba taabanaysa taasoo dhaliisha ugu badan saarayo wasaaradda diinta iyo awqaafta waxaana kamid ah khudbadiisa sida tan walaalayaal maanta dhibaatada ugu weyn ee wadankeena ka taagan waxa kamid ah dhalinyartii oo diinta ka baxaysa si walba ha uga baxdo wixii la doonaha lagu carqaladeeyo aqoonadooda lagu shaki geliyo laakiin waxaan idin sheegayaa dhowr qodob oo sababa
waxa ka waalidka oo ilmuhu markuu yar yahay diinta ku tarbiyadayn ilmuhu markuu yar yahay waxa loogu tala galay waalidku inuu uga sheekeeyo dadkii uu ku dayan lahaa ilmaha yar markuu weynaado nabigiisii asxaabtii oo ilmaha yar markuu seexanayo looga sheekeeyo markay yar jaanis hayso hooyadii ilaada ama aabihii waalidkii uu ka dalbaday in loo sheekeeyo uga sheekeeyo si ilmihi yar uu diin jacayl ugu soo koro oo uu xasuusnaado laakiin taa bedelkeeda ilmihi yar maxaa lagu seexinaya dhagdheer buti dacaw ilmihi yar indhaha inta ka dhigay waswaasa seexanaya dibigiisuba يعني waxyaabaha keenay qofku inuu diinta ka baxo ama uu iimaankiisa ka shakiyo waxa kamid ilmihi yar ayo waalidkiisa su'aal la noqdo diina oo markuu ilmihi yar su'aal diini waalidkiisa weydiiyo inta ugu badan waalidkeenu maxay ku dhahdaan wariya waxa soo galay dadka lama weydiiyo saasoo kale lama fikiro diinta dhanka la iskama weydiiyo qofka diinta si dhex kala uu ku waasha ilmihi yar marka muxuu qaadanaya qofka diinta si dhex kala uu ku waasha hadhow toolad keer badan ma siinay salaadii soonka dhaafin maayo hadhow intaan uu iska joojinaya يعني ينقى قدوة نقص قناطة يدي شيء نقص قناطة نبي محمد مركو وحشة جيد تكسيتو وشيء جيد تدع الرابية وحكي من شرين أمر رمية وحكي من شرين تولوين قالكم النبي بتشوفه انتهى وشرته مساجد كي سوق لي شرين صفوا البوي كسو 30 شرين تبدأ النبي كوي من شرين عنكم فرديا سؤالكم بلا بشرين وحين يدو دكسو دعوة ويدين شرين النبي بيسوق قصلية أو دولة عطينية أو تجن أيوة شواب شرين إنك ما هذا سمع واحد مددين تين لقوا بري iska caabina far laata ka saacado iyo dagaal yahan shabaab diintu waa naxariis waa deganaan yani qofkii wuxuu qof kasta su'aal isweydiin kara diinta wax walba uu iska weydiin kara laakiin in laga jawaabo oo la shaki saaro oo sida ugu saxsan loogu jawaabo fiican ninkaas nabiga markuu dadkaas u yimaadaan iyagoo faraxsan bay ka tagayeen oo raaliya yani bala dulqaadka nabigu marka qaar dulqaad masaajidka isagoo ninku kaacay أيام كاس حبتو كأني سلادين كقبت ينهم حول يسكت دايا هذا ما يستي بلا إلى هو نقول ما أنت مساجد كنا نمو كاتش مرة واحد يسوق دلدلنا عاد دلدلنا بلوي منه يسكت دايا اللي راي هذا ما يستلا راي نقاط يحبون نقتل إن نقطة يعني جاي ناصب نات من نقطة يعني النبي محمد يعني والدكم المي يصير مرة كل صاحبه المي يصير وحكا قاطع المي يصير وحش شيء كره المي حتى والدك يسوق كل صار نقول يا وحى وقرشين يا وحى ودوني وقبته هدو سحسين هنا واتسحيسا هدو قلدمان ويكتشوتشينيس لكن مرة ترى هذا والد بقى عروت له بود بقى لا تحتاجنها إنك واحد متوالد كله تربية دي عروت واحد له تربية دي قوة يحب يعنفي ماذا نحرست ده الحياة تكتب يعني دين حتى مرة قفك واحد لويدية أما الشيخ واحد لويدية أما قف واحد لويدية قف إن لقبصي سكت على الرحمة ويقفك مسكين سؤال بوك ويدي النبي قال لها كلها ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك هدي هذا يعني قف رقم حن أو قلبي أضق أو أضق وقل قلفسن أكتر ذوي كيا إلى هاي بدك هنا أضق واحد قف ما كنت ترى دين تا سؤال اللي يسكبوا ويدية ما كنت ترى هذا وحاسب بقول قصي وشديد هذا تصير حكشة المية رمحو وقاضني waxyaabaha kale kamid waxa kamid waalidkii burburku kala dhaco kala taga ilmihi yaray gooni u baabaa waxa kamid waxa barashada loo dhigayaa ilaa heer secondary oo 8 iyo 90 ardayda loo dhigaya maadi waan diintoodii waxba laga bareyn waxa kamid faqriga oo ilmihi dhalinyarta markuu wadankii shaqo ka waayo ee uu waayo wax uu ka shaqeeyo waxa loo soo iskaleeyaa dhankii maadiga ama xaqi lacagta loo soo iskaleeyaa oo lacag baa lagu soo jiidanayaa lagu shaki gelinayaa iimaankiisa maanta waxa kowka ah oo kaalinteedii gabtay wasaaradda diinta awqaafta waa inay ogaataa kiniisaduhu inay dagaal kula jiraan si ay dhalinyarteena u burburin lahaayeen oo ay sanad walba intaasoo malaayiin oo dollar ama bilyan oo dollar ay ku khasaariyaan si ay dadka u soo jiidan lahaayeen iyo caqiidadooda u soo gelin lahaayeen iyo waxay aaminsan yihiin diinta islaamkana ay burburin lahaayeen wasaaradda diinta awqaafta waxaa looga baahnaa inay wacyigelin ka samayso yani maalin walba waad arkaysaa khudbad ama maxaadiro lagu talagalay xujaydo kaliya waad arkaysaa khudbad lagu talagalay ama maxaadiro lagu talagalay dadka Sooma dumarku kaliya lagu talagalay dadka heesaha dhageysta lagu talagalay maxaa maalin loo arki waayay maxaadiro lagu talagalay dhalinyarta oo inta garoon sheekh loogu balamiyo ama masaajido ama TV-da 4 saacadood wacyi looga sii deyn laayay dhalinyarta diinta ka baxay wax loogu sheegi laayay wanaaga diintooda loogu sheegi laayay waxyaabaha ku kalifayeen diinta ka baxaan iyo waxyaabaha loogu soo hoos dhuumanayo loogu sii sheegi laayay wasaaradda diinta awqaafta way qabtay maxay wasaaradda diinta awqaafta ka shaqeysaa inaga ma laba cishay noo shaqeysaa maalinta roob doonta iyo maalinta bisha Rabadaan baa 10 sheekh loo xil saaraya oo loo dhigay 10 sheekh baa ilaalinaya bisha maxaa laga ilaalinaya dayacan bisha maxaa laga ilaalinaya ilaahay baa shaqo ku leh ilaahay baa soo saaraya wadamada muslimiinta oo dhan kii laga arkay inta kale way ku soomaysaa
tobanka sheekh meeqa bisha soo saaraya miyaanay ka qurux badnayn intaasoo hawla la gelayo intaasoo waxba ka jirin amaba yacni aan wax ahmiyadoo saas lahayn la hawl saarayo dadkii loo dirsaday ee u ahaayeen wasaaradda diinta iyo awqaafta inay diintii ka baxaan dhalintoodii oo diintoodii iyo caqiidadoodii fasahaad lagu abuuro oo shaki lagu abuuro wasaaraddu haddii aanay fulin karin oo aanay qaban karin wixii loo doortay 2 cisho sanadkii shaqaynayso khalaas magaca iska bedelaan ha ku qortaan wasaaradda bisha iyo roob doonta wayna wasaaraddu maanta diinta dad gaari ma laha qof kasta oo muslim oo waajib ka saaran diinta inuu ilaaliyo intuu ka garanay dadka uu ka gaarsiiyo maanta dad wax sheegto maxaa lagu wada oranaya diin aanu aqoon lahayn bis ku qaaday bad aanu garnin bis ku qaaday war anagu waxaan idin sheegaynaa diinteedii kama aqoon badnin culimadana kama naqaano laakiin waxaan idin sheegaynaa sidee wax la isku fahansiiyaa intaasoo sheekho caalim ah oo wax garanaya ayaan haddana qof kaliya ta jaahil saari karin wax u sheegi karin يعني ما أنت عندك واحد كنت أقول هاي هذا حتى هل آيات قرنا سان يقعد سي حديث كيها بلقوا عني ولو آية ما أنت حنا خليت أقولنا أنت من قرنا ينودي شيء تذكوا قل طبعا نبي يدا قلدمي أو إلهي عنني القرآن كيسوي كسحي قف البوق قلتمي كره إن لقوا قيلية قفة أو هريرها لقب صدام ما قفك بناء كوسواس نقليه ما قفك وين محلاش شجع بلا إنك واحد مدين حكا قبصك يا اسكتك تذكين أياد مدين diinta baa aynu ka qaadanay xaq ah garna hada xirato qof ku sawiraya iska bixi qof kristaan ku sawiro qof sana ku sawiran shukulaato yar dad in istiraado chocolate yar doonfar baa laga sameeyay wax walba nolosha gebigeeda waswaas fi dadka ka dhigaya meel naxariistii wax isku sheegi wanaagi yani aanu maanta maxaan ka siiyooyaa mar walba maxaan idin sheegayaa jamciinan mar walba waxaan ka siiyooyaa oo idin sheega oo nafar ilaa ta ka saacoodin wacdiya waa jiilka soo kacaya dadka imika jooga wayna dhaafeen lama qaban karo waxna looma sheegi karo dadka imika soo kacay waxaanu ku barbaarino aynu gashano baynu helayna dadka bariina qabsan doona dadka 15 sano ka bacdi ama 20 sano ka bacdina qabsan doona ayaan maanta ka soo halka u taagna waxaan idinkaga tagayaa in qudbadeena jimcaha ku soo khatimaya awlaadeena diinta aynu baro awlaadeena dhaqankeena aynu baro say bariina anfacaan diintoodii caqiidadooda aynu ilaalino waaqim salaah هذا بك بعد قد بدي وجدي شيخ إدريس الحجري لها يكرر لي هذا وحكى سو جوابي أو وحكى ويديني شيخ وينايا عالم كها العلامة واسمه نفتي سكون مقعبه شيخ إبراهيم شيخ عثمان الدوسي وحنا كملها هذا الذي سيستخدم وهذا اليوم عاطفة ولتاغي هي مساجدك شيخ حجري ومرن هبابين وسارد دينتي أوقافتنا شقكم الله وحاو شيء وساردها كله أي لا سمنت هاي marka kaliyana waa caad hadaba inta aan khatimi warkayga maalinimo waxaan maalin walba aad nooga barateen idin soo qaadanaa laba qof oo kamid ah faallooyaasha ama daawadayaasha warka oo faallooda nooga taga xagga hoose hadaba daawadahan magaciisa ku sheegay aadan xasan cabdilaahi wuxuu leeyahay wax walba dawladdu ha qaadato buu leeyahay dhulka cashuuraha iyo caawimooyinka intaba gaajo waanu ku noolaan karnaa buu leeyahay laakiin hanti waxa noo hadhay oo kaliya waa diinta ogolaan mayna in diintana laga carqaladeeyo dhalintana laga waswaasiyo wasaaradda diinta iyo awqaaftu waa in isbedel degdeg ah ka samaysaa arrinta daawadaha kale isna magaciisa soo gaaraya waxa uu ku sheegay magaciisa maxamed cali diiriye waxa uu yiri ma aha wasaaradda diinta iyo awqaaftu inay soo bandhigto wax qabadkeeda oo ay akhrido waxyaabo badan oo aanay dadku ogsoonin laakiin taa bedelkeeda waxa ka fiican buu leeyahay waxyaabaha ay wasaaraddu qabatay inay dadku ogsoonaadaan iyadoo soo bandhig wax qabadkeeda wasaaraddu waa inay sida wax ka bedeshaa hadaba daawadayaal waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo عقبات الغريب وكل حد عقبات الغريب ليس ولا حاضرين عجل ليس لا عين وكل حد عقبات الغريب حجي ليس لعين وحوين مرورتو إليو ورينيو عقد عموي محرا لغو